ما صنتهاي وأنا كلها جوب والسلام عليكم الشعب كدقيسايا ودب إن aragtidaas iyo waxa aan ka maqalnay iyo waxa aan ka aragnay aan qoray taas wax qarsoon ma aha madaxtooyada dagaalkeedu kuma kaanayo baydhabo iyo cadaade waxaan tabarteed meesha gaarsiisay waa niman dagaal qaatay oo dawladda ay leeyihiin oo dawlad goboleedyada iyo shakhsiyaad ay leeyihiin inay u dhiibtaan ka fikiray qaynuun iyo sharcina waxba ku falayn oo adigu baad arkaysay دوري طبعا حلبان على سوق تكتنا كيري واقع بالناي وزار دور الرماء قلوب أي صارت مركا سقطيجا سوادريا وأنا طبعا أنا هذا وأجنا هي والله صعنا سدونا والله صعدنا وحكستم قانون كوافق سنين فاكت يعني قرال كيجا هذا بجوك قرال كيجا يعني لين جارك كمان لين كات شيء يسوع كلية وح حط أنا إلى وح شيء يسي سجل كاحل دبان وكل ما يحتويه أنا وحول صارين أفكار تجان ما دام يسمى دبا ماشي institution كذا كل شقينا يعني تيكره يعني كنا قد سن دولة هذا بيدبا كل ملقارو مركا قاركوت حول دبان ناس هي نوع حقيقي إنه ورثة كلام مركا أنا قد أسوي هذا من لكن واحد مقلنا شيئنا إن أنا سرور إنه قدرنا دالن إذا طبعا تصحيح لك أنا قرصين قف واحد من السنة يا حلا من المسؤول هو إذا عطك الله يرضى الدولة بحائي وكيلتي إن ما هو فرق البيت في المركز ده تسوى ضدك يدرنا وإذا عضاك شيء إن لو صادر الدولة بحائي صادر تي مركز تصدق يقولنا قرص وقومي تلقى لأنه قرصانا معها لكن أنا وده ثلاثة سنين أيام أمان حتى واحد تاي قرشاتك يكون بحنا يعني معمولة بالسنة إني بربوريان إني أبني يكون بحيان ودكتور مقالات المقش لو بدي معنا الله صار فين تقف الوجود لي القرحية يدل لوج يستد مسؤولين وحما أنت دعاي أنا وكحنا استمر كورانا عن كد لابا وأنا كتعصي دعوة ساكن برر كدعوة وحلا هي صبر يمن الله مدرس عملات وإذا من الكل يقول الله يكسي قارن أهل كودي في ملة كدحان أنت دعوة عن الله عافية marka dawladdu waa inay marka hore ay bal day wax qabanayso dhibaatada halkaas taagan yani wax ka yar 48 saac inta soo dhibaataa way ku dhacday baa hortaale lacagaha qaranka uu leeyahay oo cashuurta dadka ay ka qaaday inay ku dumiso maamulada inta iska dayso amniga iyo abaaraha waxa uga qabtaan waa nimankan waa go'aan hal mar ay qaateen nimankan waa ogtahay wax 7 bilood in la mid joogaan marka way yimaadeen haday yimaadeenna waa niman goostay inay dagaalamaan oo iyagu markaa dawlad goboleedyo ay leeyihiin iyo xisbi ay leeyihiin waddanka oo dhan ka dhigaan marka waa iyagaa yaqaana waxa ay u doorteen dagaalka laakiin ma wax qarsan maaha taasu idan ilaa iyo Puntland baa dhawaaqooda sii socdaayo waa tii aad arkaysay odayaal hadlayo dhahaya maamulka qalad uu galay oo dawladda u khilaafay marka fariimahooda meel kasta way gaareen laakiin fulintooda ma filayo inay gaarto dawladnimo marka laga hadlayo ama maamul marka laga hadlayo marka hore waxa jira intaan maamulka la dhisin xeer iyo dastuur lagu heshiiyo jiro wax lagu maamulo marka xildhibaanadu way shiri karaan madaxweynaha impeachment ka keeni karaan golaha wasiirada kalsoonida kala noqon karaan intaasoo dhan xaqay u leeyahay waa arrin dastuuriya laakiin waa inay xaruntoodii baarlamaanka tagaan كورمك الله بهنا أي هلان اللي أنا هذا عبر ما يصدقني سابين أو أيو أركان معمول كانوا إنه معمول كوكا بارها يعني حتى يقول لي وأنا أرنت ستوري مركا وحكستو أو شرع درا القصة معي بدي قصة ما يسوون با أتكو سيجل يسموها يعني وح يعني وح على ذاك دعانا شرع ما هين إن تقول أنت اللي سكوت تقول لي هذا حل بنقادني دي أفقي أما حتى حمر وحاول لقيها بأني حمر كشران وهذا معلومة ما أفكي إنه حمر إنه كشران هاي مكان وحاول أفقي إنه كشران يرادا وحوان حلقة قادنا يقول سقالة وحاول متى يقول من احتوى لقيسو بشرا يرادا وحنا حلقة قادنا وحمر كان وحاسو وحسامين يالا مايانا والله اسكو برانا يا وفرنت أي دولة ودرا يسمى مولاد الجراء مولادنا هذا إنه كجواباني كو قصبين فرنتاس كستا روحي لاهي وافقيو أن كشيء جري أنا نفير جرين قبيل
iyo maaragtay tiriitin amba handadaad aniga laygu sameeyo aanay waxba iga cali jirin haddana weli sideedii baan ahay waxay ila faldan waa sheegayaa mahmaa kaana xaaladda ay tahay ilaahay baa ku mahadsan xorriyaddaas isiiyey marka dee qolyahan 8 February yimiday waa loo han weynaa runtii anigu dabcan waxaan kamid ahaa dadka islahaa waa niman xoogaal ah maadaama ninkan madaxweynaha ra-iisul wasaare soo noqday shacbiyad nooc maa helay anigu hadda aanan garanayn isagoo ku helan laakiin war fakadayaa jiro nin wax tiraya inuu yahay oo macno leh inuu yahay Soomaali oo Soomaalinimadu ku weyn tahay aynkaasoo aniga laftirkeyga aaminsanahay baa jira laakiin hadda qadiyadaha Soomaalinimada meeshuu iska istaagay istibaamadii la soo dhaafay wuxuu dhacay iyo meeshuu ka istaagay arrintaasi isaga goliisa wasiirada iyo hadda meeshuu shaqada ka bilaabay markaan fiiriyo waa la mad noqoso weysay marka hadduu fiicnaado madaxweynaha dee sharciga ilaaliya noqdana madaxweynaha noo yahay waana la shaqeynaynaa hadduu fiicnaa waayo isagoo sharciga ilaali waayana dee cod sharci darre lagula shaqey karaa ma jirto